bahda garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliyeed dhalinyarada guddiga xuquuqul insaanka qof ka soo halkan fadhiya waxaan ku salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Salaan kadib waxaan runtii farxad weyn ii yahay inaan ka soo qayb galo daahfurka xeerka ama sharciga cadaaladda daa'irta Soomaaliyeed oo xeer inta bahda cadaaladda ka shaqeysa in badan ay sugayeen inuu yimaado. Waan uga mahadcelinaynaa wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo xukuumadda iyo madaxweynaha iyo cid kastoo halkan fadhida iyo kuwa maqanba juhdiga weyn geliyay inuu xeerkan waqtigiisa hadda uu yimaado. Dadaalkii dheeraa oo la sharxayna waa dareemi kartaan muddo inuu soo socday in lagu celcelinayay inuu xeerkan u yimaado. Xeerka wuxuu ka hadlayo si fudud baa daafur loogu sameeyay, laakiin waxa muhiimka waxa weeye walaalayaal in aad u fahno dhibaatada Soomaaliyeed ee wadankan haysata. Dadka qaangaarka iyo dadka aan qaangaarka ahayn markay timaado mushkiladaha dhacaya waa dareemi kartaan sidii halista ugu kala dhacayso. halista dhacaysana waxa weeye dadka oo aan da'da qaangaarka gaarsiisnayn oo xeerkan hadda loo sameeyo oo qaabka loo maxkamadeynayo iyo qaabka dambigeeda loo oogayo iyo qaabka nataa'ijta ka dhalanaysa xukunada ka soo baxaya iyo dhaqan celinta loo sameynayo iyo goobaha tagayaan iyo sida loola tacaamulayo wuxuu dareemayaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed dareenka u dareemayaan in sidaas loola tacaamulo dadkaas ayna mudan yihiin. Waxaan rabnaa xeerar badan oo qurxoon baan leenahay oo tiro badan. waxa ugu darana waxa weeye kuwan hadda xeerkan daa'irta ka hadlaya wuxuu saameynayaa waa dad aan qaangaarkii loo baahnaa aan gaarsiisnayn oo u baahan si gaar ah in loola tacaamulo. Marka waxaan rajaynayaa wasiirka iyo xukuumaddu inay xil weyn iska saarto xeerka wuxuu jideynayo dhaqangelintiisa, duruufaha u baahan yahayna in si gaar ah loo eego. annaga garsoorka waxa nooga aadan oo inaan xeerkan la dhaqangeliyo choice maaha in la dhaqangeliyo, macnaa wax uu qofku waa sameynaya ma sameynaya dhahaya maaha, waa lagu qasban yahay xeerka hadduu dhaqangal noqdo in la fuliyo laguna shaqeeyo. mashaakisha marka la hirgelinayo soo bixi kartana ciday khuseyso si loo rabood gareeyo ka bacdina wax looga bedelo si haddaba wax ka bedelku ugu yimid. ugu dambeyn waxaan ku gabagabeynayaa warkii ahayd uu taliyuhu sheegay oo ah haddaanan wax kale aanan samayn karin aan isku tagno in da'yartu iyo caruurtu ay amni helaan ilaa amniga la yihiin dadka waaweyn baa mas'uulka ah. aad baa mahadsantihiin.